الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبي عليه الصلاة والسلام ومالين صحابتي سدح برتمها كفر أي وحى أصوغ علي ويلي رعضانه أو وليبا يستكونه wuxuu yiri rasuul ilaahayow waxaanu istaagay inaan hagaajiya beertayda xindaabkeeda darbigeedii waxa wadada iga gooyay geed ama geed timireed oo dariskayga uu leeyahay waxaan ku dhahay niyo iska kaysii wuu iga diiday waxaan ka dalbay inuu iga iibiyo wuu iga diiday nabiga yiri alayhi salaatu wasalaam hadaba ninka ii keen ila kulansi kadib ninka ayaa la keenay arinkii uu sheegay nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ninkii wiilka run buu sheegay oo arinku sidoo sheegay ayay ahaatay nabiga ku yiri alayhi salaatu wasalaam hadaba walaalka u daa geeda timireedka waa uu diiday wuxuu ku yiri ka iibso waa uu ka diiday kadib nabiga ku yiri alayhi salaatu wasalaam iiga iibso geedaada geed timireed jannada ku taalo oo ninka raakibka hooskeeda ku soconayo 100 sano saxaabadii nabiga alayhi salaatu wasalaam arinka ay la wareereen oo waxay dheen waa kuma qofka naarta galayo ayadoo hal geed timireed masaafo intaas oo dhan loo soconayo balceedi cirdigeeda waxaan loo cadeeyay ninka inuu jannada galayo laakiin waa kan isku simaayo geed adduunyada ku taalo iyo geed jannada ku taalo ninkii waa iska diiday mar kale asigoo damcaayo nolosha adduunyada dhadhalaalayso isla markii waxa soo dhaxgalay hadalkoodii أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام مد كمدا لو لما قعبي جرابي الدحداح وحونا كويري رسول الله يو هدي أن بيرتان إيبسدو هدي أن إيبسدو جيت تميرات كان ونطيع عنقان أغانكا ما يسونا تجيتي جندا مركز النبي كويري ها أبي دحداحا ننكي كويجستي وحو كويري ورما قرانا يساب بيرتي دا وحو كويري واكوما أحد مقالة المدينة كنول أنا قرنين بيرتي أبي دحداح waxay leedahay 600 oo geed timireed iyo guri qasri qurux badan iyo biyo macaan badan waxa damcaan tijaarta ku nool magaalada Madiino beerta miraheeda ka soo gacan inay ka ganacsadaan Abi Dahdah ayaa dab wuxuu ku yiri iiga iibsho geed timireedkan beertooyda oo idil qasrigeyga iyo ceelkeyga macaana inta baga iibsho ninkii wuu yaabay wuxuu fiiray rasuulka alayhi salaatu wasalaam asigoo rumaysan waay arinkoo maqlaayo aqliga ibn aadanka waa gali weysay 600 geed timireed iyo qasri iyo ceel macaan in lagu iibsada hal geed laakiin Abi Dahdah muqaabalah wuu qaabilay inuu hal geed ku iibsado arinkaas alla maxaa wanaag iyo khayr u sugnaaday ninka Abi Dahdah ninkii wuu ku waafaqay waxaana xaadiray bay'aas rasuulkii kariimka sallallahu wasalaamu alayhi waxayna ahaatay nicmo baa lagu nimceystay ayuu ahaa markuu dhameystay ka bacdi Abi Dahdah baaci ay wiilkii u jeestay ku yiri hebelow ordo qaada geed timireedkii aniga ayaa iskale waan ku siiyay Abi Dahdah wuxuu fiiray rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayuu ku yiri rasuul ilaahayow miyuu ii sugnaaday geedkii jannada markaas nabiga ku yiri alayhi salaatu wasalaam may arinkay waa sii watay nabiga alayhi salaatu wasalaam Abi Dahdah asigoo yaaban markaas nabiga ku yiri alayhi salaatu wasalaam waxaad ku iibsatay hal geed ayaa beertaada dhan ku dhiibtay oo jannada ku taalo adiga karamkaaga iyo deeqdaada isticmaalayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kugu celiyay karamkiisa iyo deeqdiisa iyo jawaadkiisa inuu ku yeelo bustaanin beerooyin fara badan oo geed timireed ah waxaan ka caajisay ayuu yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam inaan ku tiriya beertaas min kasratiha farabadnaanteeda darteed nabiga yiri markaa kadib kam min idqin radaahin li Abi Dahdah badana cantoob amba geed timireed bislaaday canab soo laalaado u sugnaaday li Abi Dahdah nabiga kamuusan zuulay inuu ku celcelinayo oraahdi iyo maqaaladii saxaabada nabiga alayhi salaatu wasalaam way la taajibeen farabadnaanta beerahaasi markaas waxay damceen mid walba ayaga kamid ah inay booska Abi Dahdah maalinta ay joogan markuu Abi Dahdah arinkii dhameystay ayuu wuxuu u laabtay xaaskiisii kadib uu ku yiri banaankii ugu soo bax wixii ku tiri maxaa dhacay
wuxuu ku yidhi beerteynii qasrigeynii ceelkeynii waan iibiyey. gabadhii way faraxday, waxay ku ogeed ninkeeda khibrad ganacsi. waxay ku tiri ayna thaman, aw lacagtaad ka iibisay? markaasuu yidhi waxaan ku iibiyey beer jannada ku taal ayaan ku iibiyey beerteynii oo loo soconayo geetimireedkeeda 100 sano ninka gaadiidka saaran. markaasii aada u sii faraxday ku tiri wallaahi waa ribixday, waa liibaantay. waa kuma axadka annaga naga mid ah ee adduunyadiisa aakhiradiisa ku gadanayo. ilaahina subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqa. dadka waxay doonayaan noloshan daniinada ah, aakhiro ayaa ka khayr badan oo ka baaqisan. dadku badanaa waxay daliishadaan aayadan oo ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay almaalu waalbanuun ziinat alxayaati dunya. maalka iyo caruurta iyo wiilashuba waa noloshan dhadhalaalkeeda iyo birbirkeeda, laakiin walbaaqiyaatu saalixaat waxa waan wanaagsan ilaah agtiisa yaala khayrun ka khayr badan cinda allahi subxaanahu watacaala. waxaan rajaynayaa qofkii maqlaa maqaaladaydan baqisadatan inuusan ka tegin asigoona u dirin dadka kale sii gaarsiinin, walaa aynu naqano kuwa khayrka iyo wanaagga isku garabsado, wanaag iyo khayrkana sii wada gudbiyo.